أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كسعة وزارة دلنيرة سبورتيغا دولة goboleedyada Puntland Koonfur Galbeed Jubbaland Hirshabelle iyo Galmudug ku socota maamulka gobolka Banaadir ku socota guddiga Olombikada qaranka Soomaaliyeed ku socota dhammaan xiriirada kala duwan ee sportiga Soomaaliyeed ogeysiin gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ogeysiin madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland Koonfur Galbeed Jubbaland Hirshabelle iyo Galmudug ogeysiin dhammaan wasaaradaha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo hay'adaha kale ee dowladda ogeysiin ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ujeedo hakinta qabashada ciyaaraha sportiga salaan kadib assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyadoo la raacayo faritaanka awaamiirta madaxda dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ugu horeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre oo ku aadan in taxadar weyn laga sameeyo faafitaanka caabuqa coronavirus COVID-19 haddaba waxaa dhammaan qaybaha kala duwan ee warqadani sida tooska ay ugu socoto lagu wargelinayaa in ay hakiyaan qabashada ciyaaraha sportiga iyo tartamada hadda socda muddo 15 maalmood ah laga bilaabo berrito oo taariikhdu tahay 19 bisha saddexaad sanadkan 2020 si loo ilaaliyo badqabka bulshadeena sidaas daraadeed waxaan ummadda Soomaaliyeed guud ahaan u rajeynayaa inay dhammaan ku noolaadaan inta gudaha dalka ku nool iyo dibadda in ay ilaahay aan uga rajeyno oon uga wada rajeyno Allah subhanahu wa ta'ala inuu siiyo caafimaad taam ah ilaahay idinkiisa waxaan rabaa inaan raacsado fariintan qoraalka ah haddii Allah uu ogolaado ka soo baxday wasaaradda dhalinyarada isboortiga xukuumadda kuna saxiixan yahay wasiirka wasaaradda Xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriyo oo idiin soo gudbinayo waxaan rabaa inaan raaciyo tayada gaarka ah iyo taxadarka dadkayga Soomaaliyeed guud ahaan ilaahayna aan uga barino inaan duceysano laga fogaado waxyaabaha dhaqaatiirta iyo caafimaadka iyo khubarada aqoonta u leh heer dal Jamhuuriyad Federaal ahaan iyo heer caalamka aan ka taxadarno waxyaabaha nala kula talinayo inteena badan waxaan arkayaa in faraha aad loo dhaqanayo maalmahan runtiina waxaad moodaa waxyaabo fara badan oo cudurka ama caabuqan laga sheegayo inaanan taxadar badan ka qabin oo aan ku koobayno annaga dad islaamaan nahay intaas oo salaad oo faral oo shan ah ayaan waqti kasta weysiisanaa isu nadiifinaa oo aan ognahay in nadaafadu ay iimaanka barkiisa tahay Allah subhanahu wa ta'ala ayaa noogu nimceeyay inta sunnaha dheeriga ah si raacsiisatana waa ka sii badan tahay haddana waxaad moodaa in loo bedelayo in xusulada iyo lugaha la isku sii salaamayo lugaha bilqaad sida caabuqan laga sheegayana dharku saaray haddaad gacmaha kaliya dhaqdo oo qofka dharkiisana taabato haddana ama xusulkiisa taabato ku salaantaan iyada laftirkeeda waxay leedahay taxadarka marka faradhaqa in lagu darsado in la dhowrsanaadaba kulligeed oo aan taabashada iyo ka fogaanshaha aan badino ayaan si raacin lahaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan ilaahay waxaan uga baryayaa inuu nahareer mariyo islaamka oo dhan guud ahaantiisna inuu nagu wada hareer mariyo waxaan rajeynayaa in muddadaas aan hadda sheegnay aan ilaahay annaga iyo islaamka iyo adduunkaba nagu
wada furdaamiyo wabillahi tawfiiq